أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسو دوادا channel كأقون official هدي channel كعصب تاعي سبسكرايب صار موقع كان لايكري صاحب دا كارسي waxaa ku jirnaa xalintii imtixaankii dowladda 2024 maadada fisikska gaar ahaan maamulka Khartoum State waxaan ku jirnaa baartigeenii ama baartigii saddexaad ayaan galaynaa oo ah direct questions and problems ayaan galaynaa chapterka ugu horeeya wuxuu ka imaan doonaa oscillatory motion su-aasha ugu horeysana waa divine amplitude and state it is SI unit marka amplitude aan qeexayno definitionkeeda wuxuu noqon doonaa amplitude is the maximum waa masaafada ugu badan ama barabaxa ugu badan uu sameynayo maximum displacement from equilibrium position or ama waxaan dhihi karnaa waa maximum displacement from its mean position SI unitkeedana waa mitir ayaa lagu halbeegaa amplitude-ka su-aasha labaad haddii aan fiirino walax cufkeedu yahay 5 kilogram ayaa lagu xiray moolo waxayna soo saartay barabax dhan 20 sentimitir haddaba sida ka muuqata sawirkan waxaa laga rabaa inaad soo saartid k marka maxaa lagu helaa k waxaan ku helaynaa force loo qeybiyey x oo displacement ah maadaama halkan forciga uu naga maqan yahay maxaan ku helaynaa mg ayaan ku helaynaa force u dhigma oo loo qeybiyo displacementiga so masska meeqa waaye waa 5 kg lagu dhuftay g oo naqaano 9.8 meter per second square oo loo qeybiyo displacementiga oo markuu ahaa centimeter u bedelnay meter waxaa u qeybinay 100 sidaa darteed 0.2 ayuu noo noqonayaa displacementiga labada markaa isku dhufano kadibna aan u qeybno 0.2 halkaa waxaa noogu soo bixi doona 245 newton per meter ayaa kasoo bixi doonta su-aasha ku xigta haddii aan fiirino direct equation-ka wuxuu ka imaanayaa chapterka labaad wave motion su-aasha koowaad differentiate between waxaa kala saartaa mechanical wave and electromagnetic wave laba qodob aan ugu jawaabeynaa oo ah kow mechanical wave requires wuxuu u baahan yahay material medium for their propagation while halka electromagnetic wave do not require aysan u baahnayn material medium they can travel waxayna ku safri karaan through empty space qodobka kale mechanical waves are waves waa hirar which propagate ama through material medium they do not travel through empty space kuma safri karaan meel maran ama meel banaan while halka electromagnetic waves can travel ay ku safri karaan through empty space ama vacuum ay ku safri karaan and they do not need uma baahna material medium uma baahna su-aasha ku xigta labaad haddii aan fiirino ee chapterka labaad ka imaaneysa waa calculation Somali National Television TV-ga qaranka ee SNTV wuxuu soo saaray signals of frequency oo ah 200,000 oo hertz ah iyo ribaaca dhan 1500 oo mitir ah calculate xisaabi the speed of waves xabaaraha hirka xisaabi speedka maxaan ku helaynaa marka v waxay la mid tahay qaacidada isticmaalayna oo lambda lagu dhuftay f oo frequency u taagan waxay la mid tahay lambda meeqa waa 1500 oo mitir ah lagu dhuftay frequency-ga oo 200,000 ah intaa markaa isku dhufan maxaa kasoo bixi doona 3 lagu dhuftay 10 ku jibaaran 8 meter per second su-aasha ku xigta haddii aan fiirino ama u gudubno can sound travel soundi ama jawaqda ma ku safri kartaa meel bannaan oo empty space ah jawaabtaadana sharaxaad ka bixi kadib waxaan leenaha answerka marka hore no waa maya because sound wave is mechanical wave and as we know mechanical waves cannot travel through empty space kuma safri kara ama waxaad dhihi kartaa sound needs ama requires material medium waaya su-aasha ku xigta haddii aan fiirino ninka cali la yiraahdo cali stands between two parallel tall buildings cali wuxuu taagan yahay inta u dhexeysa laba dhismo oo dhaadheer oo ah A and B wuxuuna gemay qori hiiris wuxuu maqlay 2 consecutive echoes laba dayaan oo isxiga ayuu maqlay wuxuuna kala maqlay 0.6 second iyo 2.4 second appears sida ka muuqda sawirka ama figureka ka muuqda waxaa laga rabaa what is the distance between waa maxay masaafada u dhexeysa cali iyo dhismaha koowaad ee ah haddii aan fiirino distancing waxaa lagu helaa v oo lagu dhuftay t oo loo qeybiyey 2 t laba time haysanaa midna 1 midna 2 ayaan dhehaynaa so v waa constant sida kaaga muuqato sawirka ka arkaysaa waa 340 meter per second ayay noqonaysaa lagu dhuftay timeka koowaad oo 0.6 ah divide by 2 dheh intaa marka maxaa kasoo bixi doona
102 mitir ayaa kasoo bixi doona. Waa su-aasha koowaad ee A ah. su-aasha labaad haddii aan fiirino, what is the distance, waa maxay masaafada between u dhexeysa ninka la yiraahdo Cali iyo building A u dhexeysa building B aan dhehe. iyadana waxaan dhehnaa distance wuxuu la mid yahay v oo lagu dhiftay timeka labaad oo loo qeybo 2. v waa constant oo lagu siiyey waa given 340 meter per second lagu dhiftay timeka labaad oo ah 2.4 second. marka intaas ku dhufano 2 u qeybina waxay noqonaysaa answerka 408 meter. su-aasha u dambeysa ee C lagu weydiiyey waxaa waaye, what is the distance between, waa maxay masaafada u dhexeysa building A and B labada dhismo. haddii aan fiirino marka distancega guud ayaa lagu weydiiyey, waxaa sameyn kartaa maadaama distance 1 aan soo saarnay iyo distancega labaad aan soo saarnay, waa isku daraysaa labada. 102 waxaa ku daraysaa 408, sidaasna waxay la mid tahay 510. ama waxaa isticmaali kartaa qaacidada kale ah v oo lagu dhiftay t oo loo qeybo 2. maadaama 2 time aan haysano, waa soo midaynaynaa labada time isku darso, oo waxay noqonaysaa timeka koowaad oo 0.6 ah lagu daray timeka labaad oo 2.4 ah, marka isu geeyna waxay noqonaysaa 3. soo marka speedkii aan haysanay 340 lagu dhiftay 3 u qeybi 2, waxaa kasoo bixi doona iyadana distancega 510 mitir ah. la soco qeybta xigta. haddii muuqaalka kusoo gaarayna saaxiibadaada gaarsii. mahadsanideen.